waa mar kale iyo xubintii jacaylka xambaarsaneed oo soo laabatay. maantana waxaan kuu soo gudbinaynaa fariimo jacayl oo marka ugu horreysa jacaylku haleelo aad u adeegsan karto. qadarta waa mid adiga kaa weyn, mana xakamayn kartid amarada qalbiga ka imaanaya, gaar ahaan xilliga uu ku asiibo jacayl. anigana maanta waxaa i wada fariin qalbigayga igaga timid oo ah inuu adiga kaa helay. waa ay adag tahay inaad afka ka sheegato jacayl, waayo jacaylka runta ah waa kan naftaada ku dhex biseela, kadibna kugu xambaara inaad gudbiso. waxa aan kuu soo bandhigayo ma ahan dareen afka ah ee waa dareen gudaha qalbigayga ka imaanaya. indhaha waxay kaa soo gudbiyeen qurux, naftuna qanacsanaan, qalbigase jacayl ayuu kuu qaaday. inkastoo aan ayaamo wada joognay, haddana waxaa jirta arrin waayuhu igu riixayo xaggaada, waayo waxa uu ku qancay noloshaada. mana lihi doorasho kale aan ka ahayn inaan kuu soo gudbisto arrinteeda. waxaan kuu qaaday jacayl, dhabtii waan dareemi karaa inay layaab kugu noqon doonto, laakiin intaad ku mashquul noqon layaabkaas, ku mashquul heerka aan gaarsiisanahay ee aan kugu soo bareeray arrinteeda. qalbiga waxa uu qiimeeyaa wanaagga aadanaha, waxaana uu go'aan ka gaaraa cidda ku habboon ee uu la darisi karo. maantase adiga ayuu nasiibku ii kaa duldhigay. sidaad ii qiimaysay waa kuu garaad, waxaana arrintaas ka dhashay waa qanacsanaan jacayl ugub ah oo uu qaaday qalbigayga, maantana uu martisoor kaaga baahan yahay. dareenku ma ahan dembi, mana ahan shay ku bilowda dheeldheel. dareenkan adiga igu gaahagay waa mid aad u qalantay, naftan sahwiga iyo dheelalowga dartaa u mudatay si uun u gal. waa anigoo ah walaalkeena Zaki Sama. haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtaada adigoo u sii sheer gareynaya. haddii aad nagu cusubtahay si aysan kuu dhaafin muuqaaladeena xiga, fadlan channelka subscribe saar, like inagu dhiirigeli. wixii fikirkaaga waxaad inagu soo gudbin kartaa qaybta hoose ee commentiga.